labada musharax ee doorashadan aad ku tartami doontaan oo dabcan ah labadii musharaxa doorashadii horena aad ku tartanteen maxaad ka filaysaa markan te hore tartamaya oo intaas dhan soo tababaranayay oo doonaya inay guur gaaraan baan dee ka ogay maxaad leedahay waan kaga duwanahay mar kale maanigu muuqaygu kala duwan yahay fikirkaygu kala duwan yahay oo labada manifestaa khilaafada doorasho xarku kala duwanahay marka bal labada marka adigu isbarbar dhigtay maxaad leedahay si gaar ah anigu waan idinkaga duwanahay reer Soomaaliland waxaan mar kale ugu qalmaynan anigu guud ahaan baan ku joogaa waa kala duwanahay aday hawshaas ku taala soo akhri soo daris waxaan kala duwan halka ka ilaa taan anigu kugu bilaabay maay manifeste adigu Faysal maxaad leedahay labada oday kale ku tartamay oo kaga duwanta yaa waan ka tacliin badnay waan ka gisbilisay intaas mas'uul baan ka soo qoday anoo sheelay baan jira ayaan noqday regional engineer oo ka cibaado badan talabaad ka cibaado badan Umar bin Khattab amiin waxaan doonayaa noqdo nin qawi ah oo amiin ah ayaan doonayaa noqdo insha Allah taala musharaxiinta kale waan kaga duwanahay igu doorta Cabdiraxmaan horta labada musharax waa saaxiibaday Sabiih Abdi iyo engineer Faysal Ali Hussein in badan siyaasadda ku soo wada jiray horta marka koowaad labadaba waa ka yarahay oo yaraan 10 sano oo marka labaad xirfad ka duwan baan leeyahay xirfadahooda ah inaan had diblomaasi muddo ka badan 40 sano waxaan kaloo leeyahay xirfadda xeer dejinta ama shuruucda dalka oo aan ugu yaraan 12 sano hogaaminayay speaker-da baarlamaankana ahaa waxaan leeyahay waxaad keeni kartaa Somaliland dunidana la saaxiiba dariskeedana la saaxiiba oo cidna la allahay waxa keeni karaa in Somaliland la aamino oo maal gashado maalgashi lagu sameeyo anu xaslee waxaad keeni kartaa ictiraafka Somaliland muddada dheer Guriyoonis